السلام عليكم أصحابتي. maanta maxaa inii wadaahe maanta waa maalintii faa'iidada waa maalintii gabdhaha loo faa'iideyn lahaa maasha Allah. maanta clipkan gabdhaha ayuu ku socdaa asxaabta, gabdhaha oo isticmaalaan kareemada maasha Allah, ama natural ha ahaadaan ama chemical ha ahaadaan, gabdhaha isticmaalaan ayuu ku socdaa asxaabta. ana horta saa u jeedaan wajiga iga halaabay, saas darteeda ayaa maanta iigu faa'iideynaya. saa u jeedaan nabra iga soo baxeen, ina arki kartaan u maleeyaa 1 2 3 iyo mid weyn oo halkaas ka soo socda hadda gaduud ay u jeedaan. intana maba la tirin karo inta nabra oo wajiga iga soo baxeen. maxaa ii keenay waa su'aasha marka. nabraha waxaa ii keenay ukuna aan cunay asxaabta, aniga ukuna allergy ku ahay. dad badan oo ila mid ahna way jiraan u maleeyaa ukunta badana allergy ku ah. aniga hataa keeg hadaa cuna hataa allergy ku ahay. keegna wal keeg swaalida keeg waa sameeyaa laakiin badana ma cuni. marmara cuna marka cunana waa ka korkiya iska xoqaaya. ukunta allergy ku ahay. asxaabta kale marka waxaa la wadaagayaa gabdho badan oo waxaa jireen iga sugaayeen wajiga nabra maxaa looga soo baabi'iyaa. anigoo ka soo jawaabinba waa kaayba wajigaygaaba nabra wada noqdayba, anigoo ka soo jawaabinba. marka hadda anaaba u baahan basa u jeedaan maxaa nabraha wajiga looga baabi'iyaa. hadda anaa u baahan garkaan oo dhan way iiga yaalaan nabraha. halkaan waa u jeedaa maasha Allah wajigayga rasmiga ee waa kan maasha Allah saanu liisho u yahay u jeedaan quruxdaan uu leeyahay. waa ka hadii asxaabta haddana wajiga nabra ayaa iga soo wada baxeen. marka maxaa aan nabrahan ku baabi'in karnaa waaye. nabrahan waxaa ku baabi'in karnaa fasti agnisol u baahanahay. agnisol asxaabta inta badan way yaqaanaysaa u jeedaan agnisolkana u baahanahay. nabraha looga talgal saa u jeedaan gabadhan nabra badan ay leedahay kadibna way ka baabeen. agnisona u baahanahay. waxaa kale oo u baahanahay jandani saa u jeedaan. jandani gabdhaha inta badan wayba yaqaaniinbo maasha Allah. whitening uu ku jiraa oo dadku cadeena whitening cream waay. nabraha dhanna uu ka masaxaya maasha Allah. habeenka ugu koowaad ama maalinta ugu koowaad asaas u marsatida iska dareemaysaa. gabar walaashay ah isticmaashay oo tijaabisay. ana inkastoo nabra aan awal qabi jirin laakiin hadda allergiga oo ukunta aan ku leeyahay ay keentay ukuna cunay. marka asxaabta hadda marka waxaa marsaneynaa kareemkana u jeedaan oo jandani ah iyo waxaa kaloo marsaneynaa agnisol. xataa agnisolka maasha Allah waaye, laakiin hadda xalay ayaa agnisolka marsaday. hadda ma marsanaayo xalay waa marsaday. waxaa u jeedaa xoogaa nabri weeba dadameen markaa marsaday. agnisolkan looma gaaraan ku dhahay maasha Allah. waxaa kaloo lii sheegay waa ogtiin wajiga hadduu nabra kaaga soo baxo wajiga baasaboor waaye, stress ku galaayo. maxaa lii jiray qofkii oo kula hadlaayo ama qofkii ku soo gala ama qofkii ku salaamo meesha ugu horeyso uu ka arkayo waa wajigan. wajiga marka maasha Allah waa baasaboor. wajigeena waa inaa marka aan fiirina aan mar walbo waxaa lii jiray aan ka fikirnaa waaye. marka ani ukunta xataa wajiga nabra kaaga soo baxay ma bisdheena hadee u badato korkaana nabra kaaga soo baxayaan dhahay wayna ka baaba'ayaan. marka hadda korkina xoogaa waa is cuncunay, gacmaha iska cuncunay xoogaa oo nabra yaryariis oo sharuurac iga soo baxeen. wajigana waaba u jeedaan kuwa waaweyn iga soo baxeen ba midkaan hadda aad u weyn igu soo socdo bal aan ka gaaro intuu igu weynaanin oo madow igu noqonin. nabraha haddana asxaabta waxay ku xun yihiin. nabraha markay ka soo baxaan markay haddana ay ka baxaan waxay kugu reebanayaan madmadow ay kugu reebanayaan. hadda kan oo kale ana hadda uu iga baaba'aysaa u jeedaan. kan maalin hore iga soo baxay wuu baaba'ay. haddana waa u jeedaan maxaa black waa. intana saa u jeedaan black waa. midkan kalena gaduud waa hadduu soo socdaa. marka asxaabta nabraha haday ka soo baxaan iska baaba'aan wax dhan ay ahaan leeyihiin laakiin black spots black ee kugu reebanayaan. marka asxaabta waxaa aga hortagi karnaa kareemkana maasha Allah aada liigo faaliyay maasha Allah. waa asigana hadda rabaa inaa tijaabiyo laakiin ani agnisolkana maasha Allah hadda koor maray nabra iga soo baxeen aan isticmaalo oo garanti aan ogahay. saa horena iigu sheegay waxaan ogahay oo kaliya ayaan ii sheegay, waxaan ogeenin iima sheegay. laakiin kan hadda tijaabe iga tahay waxaa la dhahaa Dr. Whiting
waxaa ku qoran trust me I am a doctor ku qoran saa ujeedaan aan ka akhriyay marka asxaabta kana isku tijaabinayaa hadda hadduu ii anfacana insha allah waan iisoo sheegi doonaa clip kalena iiga soo duubi doonaa laakiin gabar walaasheena way isticmaasha agnisol anigana waa isticmaale waxaa garantii u hayo waa agnisol taan oo maasha allah iyo jandani labadaas qofkii isku daran nabar dambe iskuma arkaa liisho noqona qurux ujeeda ani wajigayga liisha hadda waaba u xiisaan ku dheh dhinacan bisaa liisha iga dhinacan saa ujeedaa nabra iga soo baxeen waxaa xasuusanaya gabar saaxiibana waxay dhahday wajigaaga hataa nabra inuu kasoo bix hataa loo maleenayo ay dhahday nawaal laakiin awal ani waa qabi jiray nabra hadda ka hor qabi jiray alxamdulilah waxaa iga baabi'isay faa'iza iga baabi'isay laakiin nabrahaas nabrasha sharuura ay ahaayeen oo yaryar ay ahaayeen oo allergy oo kuleelka keena waa taqaaniin kuwa xaraara maal dhahaa xaraara anigu oo aqaana sharuurac waaye af Soomaalina sharuuraca lagu dhahaa kuwaasa wajiga iga soo baxeen waxaa iga baabi'isay maasha Allah faa'iza iyo waxaa iga baabi'iyeen damovet saa ujeeda doornada neeto labadaana iga baabi'een marka hadda labadan waa isticmaal nabraha waaweyn wali way igu yaalaan marka nabraha sharuurac ma ahan waa nabro waaweyn waaye oo allergy keena waaye ma fahamtay sharuuracana kuleelka keena nabraha waaweyn allergy keenaan أنا ورت ألجو حكوها وكنتو كله ملايقو كله وكوهاي وحكلو كوها قصقص كريمة قصقص كما عرفتوا لسكو قصقصوا لسكو دردروا جرك مرسين جرا أول واسك حق جرك نبرأ يسوي بحجرين هذا ما شاء الله كبعية سيد لو كان أنا كبعية استعمالها كريم كان كبعية أو بوديجا استعمالها ما شاء الله وجهك اسموذ كرك اسموذ يقدر ألجي دنا ملام صوبته كبعية محاواي natural waaye chemical maahan marka aniga kareemadaasita oo chemical ka oo qasqaska waxay igu yihiin allergy marka hadda waa iska dhaafay hadda kubciyeega kareemka oo kubciyaha iska marsada oo boodiga wajigana waxaa marsada faa'iidadana marsada iyo damovitkana marsada intaas aan qurux iga dhigaan marka hadda wajiga soo nabra iga soo bixi faa'iidadan way iga bixin weyse hadda marka waxaa u bedelanayaa kareemka جندنيجا أنا لإيفالي ما شاء الله وهذا كورنا مرة استعماله هذا كور مرة استعماله مركز نبرم قبل لكن ويعدي ما شاء الله وايت ويقدي because حكوجرا وسأوجد وايتين كريم أياكو قرن جندنيجا وايت ويقدي مركز زايد مركو يعدي يعني إسكدافي عندنا مركز أصحابتا سأوجدان انت كشوبنايا كريم كي كلنا واكنه دكتور trust me I am a doctor بكقرن مركب كريم كان هاد تجابنا إن شاء الله صحابتي إذن كان يسوع دعاء إنه إلهي يقبحين برهان إن كستو هذا ولو أكون مستعمله بيقبحها يعني يقبحها يعني إنه لاك صدق يقبحانا ربا ماشي ودرن waa halka waa u dambeysinaaya halkan waa isku qasay asxaabta waxa kale oo rabaa inaan igala hadlo areewin badan inaan igala hadlo asxaab badan oo waxa jirta aan igu xiran oo dhahan kareemada waa isku qasana asxaabta kareemada la isku maqaso هذا سيدان oo kale hadaa isticmaashid faa'iido iyo doorna hadaa isku isticmaashid labadaas halkan isku la qastid qamiirisid kareemkaas dhibaato ku geysanaya haduu dhibaato oo isla markaas uu ku geysanina gadaal oo haaraka gelinaya sababtoo wajigan qafiif waa zaid kareem oo qamiire looguma talagalin waxaa loogu talagalay kareem isla markaas inaad gacanta isku la qasatid mid kale hatta quality wuxuu leeyahay marka gacanta isku la qastid oo hore ka marsatid quality leeyahay laakiin marka halkan isku la qastid quality giisa xataa ay waxtarkiisa way yaraanayaan sababtoo wixii waa isku qaste meel iska yaalaya laakiin marka gacanta isku la qastid ma aragtay hore ka marsatid waxa waaye wixii fresh waaye wajigana safiican ay isla markii u dhaxgalayaan isla markii ay wax qabad ka galayaan marka
asoo waxna kuu taraynin kareemka isku qaste iyo asoo wejiga kaa haleenayo oo haaro ku gelinayo waaye. midaasna waan iiga faa'iideynaya. kareemada inta isku qasatiin ha iskula dhigina, labada kareema isku daraysiin gacantan iskula qasa ee gacanta iskula marsada. intaasa waana iga ani marka kareemkaygiyaa sii marsanaya. insha allah waxaa kareemada ku ogahayna insha allah waan iisoo bandhigi doonaa, waan iiga sheegaa, waan iiga faa'iideynaa. gabdho badan ay igu xiran maasha allah. meesha nabraa ku yaalaan weligaa waa loo dambeysiiyaa sababtoo ah wejiga kaluu kaa haleenaya. markaa marsatid gacanta waa ka deynaysaa wejiga, because meeshaan nabraa leh haddaan ku bilaabo meeshaan kale hadda difaac waaye inay nabra iiga soo bixin aan u marsanayaa. laakiin garkaan hadda nabra ay ka buuxaan. meeshaana kasii daran noor waaweyn kasoo socdo. alajiga ukunta dhibkaan ii keenta inaa iska ilaaliya isku dayaya insha allah. hadda kadib asxaabta wejiga waa soo dhaqay. marka kareem walba aa marsanaysid wejiga inuu ku qoyan yahay fiican, markaas kareemka si fiican uu wejiga u galayaa. laakiin weji qallalan wax hadaa marisid waxaa marsatid wax way tarayaan, laakiin sidii la rabay uma tarayaan. asxaabta waa ku joogayaa kareemka ilaa 2 saacadood aa la rabaa in lagu joogo asxaabta. marka kaamirada waa daminaya insha allah. ilaa 2 saacadood ma is ag fadhin karno, saacadii ay ugu dheeraanaysa, daqiiqadaha badanayaan. marka ilaa 2 saacadood inaa ku joogaa rabaa. kareem waxtar markaa ka rabtid waa inaa waqti ku haysaa, ugu yaraan 2 saacadood iyo ka badan waa inaa ku haysaa. meeshaana aada u marinaya. asxaabta isku soo laabaneynaa. istoobaan dhahaya insha allah. asxaab waa iska soo dhaqa saa ujeedaan. wejiga xataa weli biyuu leeyahay saa ujeedaan. waa iska soo dhaqay. marka haddana maxaa marsanayaa marka ilaan wejiga waxaa mariyo xoogaa wuxuu noqday salax uu noqday maasha allah. aan ku dhahay smooth ayuu noqday wejiga dhan. waxaa ka dareemaya an dhan inuu wax noqday. ujeedaa gacanta taasi u deganaysa salaax uu noqday wejiga dhan. marka waxaa kaloo marsaneynaa saa ujeedaan alvero aan marsaneynaa. dacar waaye, dacarta maasha allah ay wejiga ka dhigtaa, way u fiican tahay. haddana kareemka markaa marsatid kadib way u fiican tahay inaa marsatid. wejiga qurux kaaga dhigaya. dacarta wejigay qurux kaaga dhigaysaa, qawaabna way kaaga dhigaysaa asxaabta maasha allah waaye. markaa kareemka aa marsatid kadib hataa maalin gabar waxaa ii imaatay orax intay ka imaatay gabar oo kareem marsataa ii imaatay. oraxay kusoo socotay wejiga dhan gaduud ee ka noqotay, gabsaartaan oo kale ka noqotay wejiga. markaas waxaan ku dhahay kana usoo bixiyey oo armaajiday saarnay aan usoo bixiyey marsaan dhee geedka maasha allah waan dhahay hadduu gaduudkaan kaa bicinaya maasha allah. aan ku dhahay gabdhaha oo gaduudka wejiga ku lehna waa u faa'iideynaa ayakana insha allah. gaduudku bicinaya haddaa wejiga gaduudka leedahay. dacarta haddaa marsad isla markii wejigaaga kalarkiisu kusoo noqona quruxu kaaga dhigaya.
asxaabta marka dacartaan ha laga faa'iideysto insha allah. waxaa jeclahay inaa wax alla wixii fiican aan ila wadaaga jeclahay. dacartaan aan ku dhehe wejiga quruux ee kaaga dhigay xataa kareem adoo marsanin haddaas waxaad inta soo kacda wejigaaga dhaqatidaan ku dhehe aa marsatid markaa iska dhaqay sidaan ku dhehe quruxda adduunkaa noqona smooth liisha wejiga kaale iska arag. ayada waxaana way jirtaa oo nafaqo ah scrub ayadoo ahaa jirtaa wejigaa la marsadaa ayadana quruxay ka dhigaysaa. marka asxaabta dacartan ha la isku dadaalo hataa ayadoo caadi haddaa heli kartid xataa wejiga iska marso wejiga u fiican tahay timanka u fiican tahay dacarta meel ay diidaysa ma lahan aan ku dhehe daawo waay maasha allah meel walba u fiican tahay. marka asxaabta haddana waa kasii baxaya insha allah ka faa'iideysi wacan. waxaan iiga faa'iideynayay gabdhaha wejiga nabraha ka qabaan agni sultan inay marsadaan iyo jandani labadaas hadday isku daraan maasha allah. haddana iyo Dr. White na maasha allah saa ujeedaan screenshot ka qaata nabraha iyo wejigana qurux oo ka dhigaya asxaabta. dacarteyda iisii marsanaanaysa ilaa cabaar kareemkii hadda 2 saacadood camal aan ku joogay stoobaan ka dhigay aheyd kaamirada marka haddana kan waa iskaaga joogaya insha allah ilaa cabaar ilaa 2 saacadood ama 1 saacadood iyo bar kadib insha allah waa iska dhaqaaya wejiga waxaa ku dhehe qurux kuu noqonayaa asxaabta. marka haddana waxaan iiga sii tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.